xubnaha ururka Alpha Trust ayaa wadooyinka magaalada Muqdisho iyo goobaha dadka ay isugu yimaadaan gaarsiiyay agabka lagaga hortago cudurka safmareenka ee COVID-19. Wakiilka ururka Alpha Trust ee dalka Netherlands Ada Cali Cabdi oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hogaaminaysay fulinta barnaamijka wacyigelinta cudurka COVID-19. Anigoo ahay Ada Cali Cabdi oo ka socoto ururka Alpha Trust ee ambassadorada dalka Holland. waxaan maanta ku suganahay magaalada Muqdisho. waxaan maanta bixinaynaa haddaan nahay ururka Alpha Trust face mask ka gacmaha la gashto daawada gacmaha lagu dhaqo marka dadka danyarta oo awoodin inay gataan ayaan ugu talagalnay. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay cudurkan naga qabto. qaar ka mid ah dadka la siiyay agabyada lagaga hortago caabuqa COVID-19 oo la hadlay telefishinka Universal waxa ay sheegeen inay u mahadcelinayaan ururka samafalka ee Alpha Trust ee soo gaarsiiyay agabyada lagaga hortago caabuqa coronavirus. bismillah magacayga waa Cabdifataax Xuseen Cabdifataax UK aan ku magac dheerahay dhalinyarada ka xamaalata mootaaleyda aan ahay ka mid ahay nimankan dhalinyarada walaaleena barnaamijkan fiican oo wacyigelin ah waxgal ah waxtar ah bulshada u soo dhiibana Ilaahay khayr siiyo Alpha Trust barnaamijkan aadan ugu faraxsanahay waxtar weey waa kana u jeedin face maskaas ee gacantan baalkan gacanta la gashto iyo baalkaas gacanta lagu dhaqdo aad ay u mahadsan yihiin keep going aan leeyahay waana idin taageersanahay Soomaalnimada waarta leeyahay aad u madnoqeynaa hay'adda Alpha Trust oo naga ilaalisay cudurka coronavirus oo nasiisay baalka sanka lagu xirto aad ugu madnoqeynaa mafati gaar ahaan haddaan nahay bi'eelada bustaajada xamrweyne. Bismillahirrahmanirrahim. Anigoo ah magacayga Aadan Cabdiraxmaan Xasan wiilasha walaalahan oo soo gaarsiiyeen oo iyo face mask iyo baalka gloves iyo baalka gacmaha lagu dhaqanay oo soo gaarsiiyeen ururka dhalinyarada walaalahan aad u mahadsan yihiin. dhinaca kale gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa sheegay in mar walba ay u taagan yihiin wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed waa qayb weyn oo ka mid ah waxqabadka ururka Alpha Trust. waxaa mar walba naga go'an inaan kaalinteena ka qaadano ka hortagga caabuqa COVID-19. ma aha markii ugu horeysay ururka Alpha Trust oo barnaamijyo samafal ah iyo kuwo wacyigelin ah uu ka sameeyo gudaha dalka iyadoo bil walba ururka uu ka howlgalo gobol ka mid ah gobolada dhulka Soomaalida. Cabdicasiis Okey, Universal TV, magaalada Muqdisho.